dowladda Masar ayaa si laga soo xigtay warbaahinta caalamiga ah waxa ay ku dhawaaqday in toddobaadyada soo aadan waa bilowga bisha January ee sanadkan cusub ee 2025 ciidamadii ugu horeeyay oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee cusub ee AU samleeyraado in ay Soomaaliya imaan doonaan warbaahinta caalamiga ah iyo sidoo kale warbaahinta gudaha waddanka Masar ayaa maanta waxa ay qoreen warbixino ay ku sheegayaan in dowladda Masar dhawaan ay bilaabi doonto daaburidda kumanaan ciidamadeeda ka mid ah oo Soomaaliya ku gaari doono dhinaca badda hawada iyo sidoo kale siyaabo kale in ciidamadaasi dalka Soomaaliya ku imaan doonaan kadibna ay Soomaaliya ka difaaci doonaan cir iyo dhul iyo bad intuba ciidamadaas waxay ka mid noqon doonaan howlgalka cusub ee ciidamada Afrikaanka ah ee January sanadka 2025 oo maanta ah bilowday ee la yiraahdo AU howlgalkaas oo wadamo badan ay ku biirayaan ama ay qayb ka yihiin iyadoo sidoo kale warbaahinta caalamiga ah ay qorayaan in Masar ay diyaarinayso sidoo kale khubaro la taliyaal dhanka ammaanka ah istiraatiijiyadda ah qalabeynta ciidamada Soomaaliya iyo diyaarintooda taasoo wax weyn u ah Soomaaliya laakiin waxay dhinaca kale ka wadataa arrin halisteeda wadata sababtoo ah Masar iyo Itoobiya isma arkaan Itoobiyana ciidamo ayaa wali Soomaaliya ka jooga waxay ahayd maalintii shalay ahayd inay waddanka ka baxaan laguma guuleysanin dowladana wali ujeedadeeda ma cadaynin laakiin mandateska ay ku joogeen AMISOM ama ATMIS Itoobiyaanku waa ka dhamaaday madaxda Soomaalidana siyaabo kala duwan ayay waxay u sheegeen bishii December ee sanadkii hore ee hadda dhamaaday in 31 bisha December wixii ka dambeeyay askari Itoobiyaan aan Soomaali u arki doonin waliina waa ay joogaan ma bixin waxay dad badan oo arrimaha ammaanka faalooda ay qabaan Itoobiya iyo Masar oo Soomaaliya isugu yimaada inay Soomaaliya noqon karto goob lagu dagaalamo dhibaatana ay ka keeni karto ama gobolka geeska Afrika ay saameyn ku yeelan karto Masar waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay taageerto guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya badbaadiso ciidamada u tababarta howlgalka cusubna ay diyaar u tahay inay ka qayb gasho iyadoo soo jeedisay in aan laga hor imaanin codsiga ay Soomaaliya u dirsatay oo ah in howlgalkaasi ay qayb ka noqoto Itoobiyana walaa xoog la ay muujinaysaa iyadoo ka walwalsan haddii Masar ay ciidamo keento Soomaaliya iyadana ay howlgalka cusub ka sii mid ahaan weyso waxa dhici kara sidoo kale Itoobiya waxay ka walwalsan tahay Masar iyo Itoobiya haddii labadooda lagu daro howlgalka حتى كوبا قناعسنو اي وحي ولول كقبتا ان جيسكا افريكا ودمada diriska la Itoobiya sida Soomaaliya oo kale in ay Masar soo luga dhigato ciidamo ka yimaadaan humna ay keensato sababtoo ah laba wadan oo aad turguf ugu dhaxayso way oo webiga Niil isku dagaalay haddana Itoobiya raasay badda casgaarto Masarna waa u dhamaato markaas way ka hor imaanaysaa ama way diidan tahay in Itoobiya ay timaado badda cas horayna uu sheegtay inay tan aqbali doonin Itoobiya oo tagta biyaha badda cas haris weyn ay ku tahay amniga waddanka Masar lama oga halka ay xaalad ku dambeyn doonto wali wadamadu ma dhameystirmin laakiin maanta ayay si rasmi u shaaciyeen midowga Afrika qoraal ay soo saareen inuu bilaawdo howlgalkii cusbaa ee Soomaaliya ay yuusan maanta oo kooda bisha January ee sanadka 2025 ah waxa lagu bilaabay 1000 askari oo howlgalkaasi ah si aan xogta ku helino waana waddanka Uganda ciidamadaas wadamo kale ay ciidamo ka joogaan qaar kale intoodna hadda ayaa laga sugayaa waxaan eegi doonaa mustaqbalka Soomaaliya iyo howlgalka cusub wuxuu ku dambeyn doonaa